السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo macallin Maxamuud cashkan waxaynu ku arkaynaa 10 kan erey meesha noo saaran ereyga koowaad fattening waxay ka yimaada ereyga fat waa buuri laakiin waa impolite language qof fat hadin don't say someone fat yani waa luqad laga wanaagsan yahay erey kale waxa jira for example overweight kuwaas baa isticmaali karta laakiin fattening waxa loo isticmaalaa waxyaalaha lagu buuranayo the food or the thing that can make you fat wax lagu buurtaa la yiraahdaa fattening for example chocolate cake is fattening yani doorshada laga sameeyo chocolaatada waa lagu cayilaa yes ereyga labaad off hand waa wax markii aad ka haysid maskaxda yes maskaxdan ka qabta off head bay dhahan dadka laakiin sida saxda ah off hand ayaa la yiraahdaa he gave an off hand answer wuxuu siiyay jawaab uu maskaxda ka hay ereyga saddexaad pub waa iska maqaayad yar ama dukaan yar oo lagu talagalay khamrada in lagu cabo waxay isku macno yihiin ba waa iska adigu meel yar oo lagu talagalay khamrada in lagu cabo yes they met at the pub to watch the football game pubkii ku wada kulmeen ama baarka si ay yani ciyaar u daawadaan ereyga afraad recipe waxa waa instructionka kuu sheegayo habka cuntada loo kariyo hadda haddii aad rabto baasta inaad karsatid recipe-ga baastada markaa raadayso wuxuu kuu sheegay step by step-ka qaabka baastada loo kariyo tusaale dagsiga dabka saar biyo ku shub cusbo yar ku dar baastada ku dar yani wax yar saliid ku dar qaabkaas recipe yes waa instructionka kuu sheegayo qaabka cuntada loo kariyo ereyga shanaad ereygan dhawaqiisu yar adag yahay restaurator waxa waa somebody who owns a restaurant qof maqaayad leh ama maqaayad maamulo adigu qof maqaayad iska dheh restaurant owner yes ereyga lixaad rock and roll waa nooc ka mid ah music it's a style of music qarniyada hore isticmaali jiray yani musica different genres buu ka leeyahay waxaa jira hip hopka waxaa kaloo jira jazzka classical musica pop rock musica ayaga noocyo badan reggae-da marka rock and roll is a type of music it's a style of music simply waa nooc ka mid ah heesa ereyga toddobaad scooter waa bahal yar sida baaskiil ku samaysan oo lagu talagalay qofka inuu meelaha ku gargaaro yes lugtaana lagu riixaa balka baa la yiraahdaa scooter tan lahayd sawirkiisa Google ku qortid inaad fiiriso si aad maxay ahayd sawir guud oga heshid because they say one word or a picture is worth 1,000 words waa proverb Englishka ereyga sideedaad sleek waa wax shiny ah and well designed wax marka si fiican loo naqshadeeyay lagu farayareystay taas baa la yiraahdaa sleek yes for example the car has a sleek and modern design waa design lagu farayareystay aan u qurux badan ereyga sagaalaad utilitarian waa something useful wax markay faa'iido leeyihiin ayaa la yiraahdaa utilitarian yes faa'iido leeyahay it's very useful the last word ereyga tobanaad flared ereyga tobanaad u dambeeyo flared waa widening ama spreading outward wax markay diiqmayaan ama ay ballaaran yihiin baa la yiraahdaa flared ama widen waa dhigi kartaa wax markay kugu dhagan yihiin waa tight ama narrow for example she wore jeans that were flared at the bottom waxay xirneed jeans xagga hoose ka ballaaran yes cashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day